ma shirkadan ka gaaray waxaan ahay tababare dhinaca digital marketing ama digital business ah waxaan aad mar kasta xoog u saaraa sidii aan bulshadayda Soomaaliyeed uga faa'iideyn lahaa wixii aniga aan bartay iyo waxaan isleeyahay waad fahansan tahay company-gan Leafgood waxaan kusoo biiray bishii 2 ee February wixii intaa ka horeeyay muddo ku dhawaad 7 sano aan iraahdo 2017 ilaa hadda waxaan ku dhex jiraa barnaamijyadan online-ka ah hadday noqon lahayd e-commerce haddii ay noqon lahayd cryptocurrency haddii ay noqon lahayd affiliate market haddii ay noqon lahayd network market kambaniyaal aad u fara badan ayaan lasoo shaqeeyey markay noqoto dhinaca digitalka wuxuu ii noqday wax noloshayda ka mid ah ayuu ii noqday waxaa la yidhahdaa dadka waxaa la yidhahdaa waxbay addicted ku noqdaan ama addicted ay ku noqdaan in la qabsadaan ee iska fujin waayaan markay noqoto businessyadan online-ka ah addicted baan ku ahay runtii aad baan u jeclahay sidoo kale dadkana waan la jeclahay idinka caawa soo xaadirin insha allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan kambanigan markaan kusoo biiray runtii wax badan ayaan ka bartay noloshaydana isbedel badan ayuu ku sameeyey isbedelkaasi ayaan rabaa insha allah caawa inaan idinla qaybsado waayo qofka waxaa la yidhi deeqsiga ah marka uu barnaamijka usoo gala ama uu arka wax isaga anfaca dadkiisa ayuu la wadaagaa markaan barnaamijkan arkay ayaan go'aansaday inaan dadka bulshada Soomaaliyeed uga faa'iideeyo wixii aan bartana usoo gudbiyo aniga iyo waliba tiimamka isla shaqeyno oo dhan sidaa ayaa caawa ay kugu soo gaartay barnaamijkan cid kastaba ha kusoo gaarsiisee qof Soomaali ah ayaa kusoo gaarsiiyey ee ku jiro barnaamijka Leafgood intaa markaan kasoo laabto sida halkaad arkaysaan caawo waxaan idin sharaxi doonaa barnaamij la yiraahdo Leafgood oo ah fursad ganacsi waxaa laga yaabaa ganacsi markii la yiraahdo dadkoo dhan inay ganacsiga jecleen laakiin noloshoo dhan waa ganacsi subaxi markaad sariirta kasoo toostid ilaa habeenka sariirta aad ku laabatid qof walba waxa uu xalay waa ganacsi noloshoo dhan waa ganacsi cid kasta ee aad xiriir la yeelatay aad wada shaqaysaan haddii guriga ay noqoto haddii hooyo ay noqoto haddii qoys ay noqoto haddii shaqo ay noqoto waa ganacsi waa dhiil waana muhiim qofka markaa inuu fahmo nolosha inay ganacsi tahay laakiin ganacsiga maaha kali inaad alaab iib geysid oo alaab iibisid so maadaama nolosha ay ganacsi tahay adduunkan uu online noqday fursadaha gacantaada ay ku jiraan iyo mobilka aad gacanta ku haysatay hadba si aad u adeegsata ayaad uga faa'iidaysan kartaa barnaamijka caawa idin la wadaagay waxaa la yidhahdaa company la yidhaahdo Leafgood inta badan dadka marka ay kambaniga magaciisa ku sheegaan waxay ku dhihi doonaan Lifegood kambanigan Lifegood ma ahane waa Leafgood waa nolol fiican ku noolow nolol fiican ayuu ku hayaa ma jirto cid kula jecel nolol fiican laakiin kambanigan wuu kula jecel yahay kambanigani Leafgood waxa ku yaalaa ama laga leeyahay waddanka Mareykanka gobol la yiraahdo Florida xafiiskiisa ugu weyn waa halka kambanigan aad ayuu u da'yar yahay muddo hadda 6 bilood iyo bar 7 bilood ayuu jiraa kambanigani qaabka uu u shaqeeya ama nidaamka uu u shaqeeya ama ganacsigiisa waxaa la yiraahdaa direct sell ayuu u shaqeeyaa kaasoo ah qaab adiga iyo kambaniga aysan cid saddexaad idin dhexaynin oo aad direct adiga isaga wada xiriireysaan productgiisana aad adigu direct u suuq geynaysid haddii ay noqoto dhinaca ganacsiga ama suuq geynta waxa ku shaqeeyana waa suuq geen ama product uu leeyahay kambanigan in la suuq geeyo ama uu u helo macaamiil iibsato inta badan markaad aragtaan ganacsiyada ama businessyada dad ayaa aas-aasay waa fikrado dad ay aas-aaseen fikirkana qof ayuu kasoo burqadaa ama khibradii ha u noqoto ama aqoontiisa ha noqoto ama caqligiisa iyo garaadkiisa ha geeyo kadibna fikradaasi waxaa loo bedelaa qaab qoraal ah oo loo diyaariya markaa kadib ayaa dadka lala wadaaga waa la falanqeeyaa hadday macquul noqotona waa la soo saaraa waxaa laga dhigaa shirkadaha aad maqasheen haddii aad maqasheen tech company shirkadaha technology company oo ay ka mid yihiin shirkadaha sida google shirkadda google aad taqaanaan shirkadda facebook iyo shirkadahan kale badan ee aad taqaanaan oo amazon ay ka mid tahay waxaa la yidhahdaa tech company waa shirkado technology dhammaantood dad ayaa aas-aasay fikir qof uu keena laakiin team ayaa dhisay kambanigani Leafgood waxa iska leh ama aas-aasay ma fikirki lahaa ninka la yidhaahdo Ben Glinsky waa CEO-ga kambaniga waxaa khibrad uu leeyahay 20 sano oo marketing ah ama network market ayuu khibrad u leeyahay maskaxiyan markay noqoto waa nin kambaniyaal badan soo aas-aasay fikirka kambanigana muddo ayuu ku jiray laakiin sidaad wada ogtihiin markuu dhacay COVID-19 wadamada qabowaha ee ka mid tahay waddanka Mareykanka ama wadamada Yurub
waxaa la ogaaday baaritaano badan oo la sameeyey dadka badanaa xanuunka u dhinto ama xanuunada ay ku dhacaan dhaqso u dhinto in ay haysato dhibaato ah fitamiinada oo ku yar ama immune systemkooda oo daciif ah. wixii intaa ka dambeeyey kambaniyaasha soo saara way laba jibaareen markay noqoto dhinaca caafimaadka daawooyinka ama waxyaalaha loo yaqaano vitamins minerals iyo proteinska ah. isagana fursaddii ayuu ka faa'iidaystay maadaama uu qof entrepreneur ahaa. waxaa la shaqeeyo ninkaa la yidhaahdo khansan, isaga waxa uu u qaabilsan yahay qaybta marketingka ama horumarinta. gabadhaasi iyo wiilkan kale iyagana waa labo aan kala dhicin oo dhinaca waxay barteen medicineka ama daawooyinka ayay barteen, waxa ayna horumariyaan daawooyinka ama maxay ahayd product company-ga iyo sidii loo horumarin lahaa oo ay ku noqon lahayd product quality leh. tiimkan waa tiimka company-ga howsha inoo wada ee hoggaanka inoo hayo. xalwo ma aha qofka company-ga iska leh, maxamed jaamacna ma aha, laakiin waa tiimkan wax iska leh. annagana waxaan nahay dad la shaqeeyo oo waxaan nahay marketer oo ka shaqaysta company-ga. company-gan hadafkiisa waxa weeyaan in dadka ay helaan caafimaad oo ay ku noolaadaan nolol caafimaad qabto iyo sidoo kale dhaqaalo. badankiina maanta haddii caawa su-aal ladin weydiyo la yidhaahdo war adigu maxaad doonaysaa dunida maxaad ka rabtaa, qof walba wuxuu ku leeyahy nolol qurux badanaan rabaa, nolol sacaado laha sarreysaan rabaa, waxaan doonayaa inaan nolol horumar gaaro. haddii aad tidhaahdo maanta dhalinyaro badan oo soomaali ah ee waddankii jooga xagee baad u socotaa, wuxuu ku leeyahy yurub baan u socdaa, maraykan baan u socdaa, tahriib baan ahay, maxaa kaa halkaa jooga ama halkaa kaaga horreya markaad tidhahdo wuxuu ku leeyahy nolol qurux badan baan doonayaa inaan ku noolaa. laakiin waxaad ogaataa nolosha quruxda badan waa hadba meesha aad joogta iyo sidaad ka dhigatid. waxaa jirto waxa la yidhaahdo 4 sacaado ee waaweyn ee nolosha. waxaa ka mid ah caafimaad qofka inuu haysto. haddii maanta aad caawa caafimaad qabto gurigaada aad joogtid wax kaa maqan way yarta. qodobka labaad waxaa la yidhaahdaa farxad happiness, inuu qofka faraxsan yahay. waxaa laga yaabaa caawa inaad faraxsan tahay maasha allah, farxaddii caafimaad aad haysatid. qodobka saddexaad ee sacaadada nolosha sarreysa waxaa la yidhaahdaa inaad haysatid wealth, dhaqaale inaad haysatid. albaab kasta waxaa kuu furi kara dhaqaalaha. laakiin haddii aad caafimaad iyo farxad haysan dhaqaalaha micno kuuma sameynayo. qodobka afraad ee la yidhaahdo nolosha sacaadada leh waxaa la yidhahdaa inaad haysato jeceyl loof inaad haysatid. haddii aad lacag haysatid, caafimaad haysatid, farxad haysatid, laakiin aadan jeceyl haysanin oo cid aad jeceshahay ee garab ku siiso, ee marka aad daalan tahay ku garab istaagto, marka aad niyad jaban tahay ku dhiirigeliso, ee saaxiib aad ka dhigatid, haddii aad haysanin waxa weye nolosh way kala dhiman tahay. afartaasi sacaado qofkan gurigiisa ayuu ku samaysan karaa, halka aad joogtad ku samayn kartaa. islaamiga kale dadka muslimiinta ah intaasi waxaa u dheer sacaadada mid ka mid a oo shanaad oo la yidhaahdo ma dhimashada kadib qofku wuxuu rabaa inuu jannada galo. maanta laga bilaabo marka haddii aad doonaysid noloshaasi quruxda badan ee sacaadada leh, adiga ayaa samaysan kartid liif guudna fursaddii aad u mari lahayd ayay ku siisay. farxad inaad ku noolaatid, caafimaad inaad ku noolaatid, dhaqaale inaad samaysid. bamisa jacaylka laakiin adigaa lagaa raba inaad samaysatid. lacag haddaa hesho jacaylku wuu imaanaya sooma. ujeeddada marka waxa weeyaan kambanigani waxa ka go'an in qof kasta gurigiisa iyo meesha ku nool yahay telefoonku intuu kasoo gala dhaqaale inuu kambanigan ka sameeyo. sidoo kale caafimaadkiisana uu uga faa'iideeyey. caafimaadka sida looga faa'iideysan karaa productan idin dulgeyn doona. markay noqoto caadiyan dadka caalamka waxaa jiro 4 qaab oo dadka ay dhaqaale ku sameeyaan. 4 qaab mid ka mid ah caawa haddaad ogtahay dhaqaale uu kugu soo galaa. ma sheegayo in lagu soo biilayo ee aad qof maraykan jira ama yurub jira aad biilka sugayso, taasi waa gooni. mar haddii lagu soo biilayo waxaa tahay qof xabsi ku jiro, taasi waa gooni. laakiin 4 qaab qof bini aadamka lacagta ee dhaqaalaha kusoo gasho waxa weeyaan number 1 inaad tahay employee oo aad cid u shaqaysid. marka aad shaqaalo tahay ee cid aad u shaqaysid waxaad sugaysaa amaad iibsanaysaa waqtigaadii. lambar 2 self employee waxa la yidhaahdo ama small business, inaad ganacsi yar leedahay ama aad hoola yaro business yar adiga aad leedahay aad wadatid. labadan dhinac waxaa la yidhahda dhaqaalaha lagu sameeyo dhinaca bidix ayaa la yidhahdaa. dhinaca midig waxaa lagu sameeyaa investor inaad tahay, inaad tahay maalgashade ama business owner inaad tahay. 4taa qaab haddii mid ka mid a caawa ay lacag kugu soo gelayso, bal marka aad meetingka ka baxdo bogii qalin qaado, isweydii siyaabaha ay lacagta kugu soo gelayso iyo midkeebay lacagta kugu soo gasha haddii oglaad ogeen. midka ugu horreeya employee-ga ah waqtigaada ayaad iibsanaysaa. 60 sano 65 sano markaad gaartaan retire aad noqonaysaa. wax kuu dheer ma laha. qofka employee-ga ah aan idhaahda self employee-ga ah dukaankiisa marka uu furo ayuu shaqaynayaa.
marka uu xiran u xirnaanaya haddii taksiila aad tahay taksiga intaad waddo ayaad shaqaynaysaa markaad taksiga dhigta lacag kuma soo gelayso labada dhinaca kale ee dhinaca midigta markaad u dhaadhacdid investor haddii aad maalgashado tahay lacagta ku shaqaynayso tusaaloo kale shirkadda markaad caawa soo gashid barnaamijkan aad ka heshid haddii aad ku laabatid oo aad tidhaahdid waan soo gelaya $50 aad ku darsatid waxaad tahay investor kambanigan waad maalgashatay hubaalna lacag waad helaysaa ilaa isagaa kuu ballan qaada farxad iyo lacag labadaba inaad heli doontid hadii ilaah idmo qofka maalgashadaha ah lacagta u shaqaysa waqtigiisa uma shaqeeya waana dadka dhaqaalaha ugu badan caalamka soo saara qofka la yiraahdo business owner ama businesska iska leh waa qofka businessyada leh kambanigan ninka iska leh waa business owner annagana waxaan nahay investor marka aad liif guud ku shaqaynayso ma tihid qof employee ah ma tihid small business waxaa tahay investor markay noqoto lacagaha caalamka boqolkiiba 95 waxay ka yimaadaan B iyo I oo ah investor iyo business owner sidoo kale boqolkiiba 95 dadka waxay ka shaqeeyaan inay shaqaale yihiin oo employee yihiin ama inay small business haystaan marka halkaana la isku dul saaran yahay dadku isku buurteen halkaana waa firaaqo yaa soo geli kara qof geesi ayaa soo geli kara oo yiraahdo fursadan waan ka faa'iideysanaa ee isfahmo ayaa soo geli karo aan ku laabto markaa maadaama aan iraahday caawa haddii kambaniga aad soo gasho waxaad tahay investor aad tahay xagee baad wax ka bilaabaysaa waxaan ku bilaabay kambanigani wuxuu kuu diyaariyey in caafimaadkaada mar walba aad sare u qaadid dhaqaalana aad heshid producti kambanigan waa mid bedeli karta nolosha qofka life change ayaa la dhahdaa tusaaloo kale fitamiinadan haddii qofka uu isticmaalo inta fitamiina ee mid kasta uu ka kooban yahay ama ingredients uu ka kooban yahay ayaa qofka dhinac kasta ka caawinayso maxaa yeele qofka sidiisaba welibana mar haddii aad gaartid da'da 30 sano aad gaartid jirkaada sidii naturalka uma samayn kara fitamiinada iyo proteinka labadaba waxaad u baahan tahay marka caawinaad u baahan tahay sidoo kale fitamiinadan waxay caawiyaan dhinac kasta oo dhiigga ay la shaqeeyaan hadday noqon lahayd dhiigga cas hadday noqon lahayd dhiigga qaybta la yidhaahdo ee dhiigga gaduudan dhiigga dhacaanka soo qaada sida candhuufta iyo wixii lamid ah dhiigga qaybta qofka dhacaankiisa caadiga soo qaada intaba ayay la shaqeeyaan qofka marka uu isticmaalo waxaa muhiim marka qofka inuu fahmo ama uu ka faa'iidaysto waayo waxa loo sameeyey cabitaanadan markaad cabtid noloshaada isbeddel ayaad ku arki doontaa waana loogu talagalay si gaar waxay u caawinayaan dadka immune systemkeeda uu daciif yahay laakiin cid kastaba markay noqoto kambanigan productigiisa maxay kaga duwan tahay kambaniyaasha kale waa producti leh quality fiican ama waxa la dhaho markay noqoto quality ayay leedahay xagee laga sameeyey kambanigan waxaa laga yaabaa inta badan marka waxa laydin soo bandhig ganacsi laydin soo bandhig inaad tidhahdaan ma naqaano xagee ku yimid laakiin markay noqoto productyada gaar ahaan herbalka la dhaho waxa ugu fiican herbalka caalamka haddii lagu sameeyey maraykan iyo haddii yurub lagu sameeyey wadamada haddii lagu sameeyey ayay ugu fiican tahay waayo qualitygeeda ayaa aad looga taxadiraa iyo geedaha iyo dhirta laga sameynayo sidoo kale kambanigan productigiisa waa dhir wax laga sameeyey kuma jiro wax kale kuma jiro wax maxay ahayday shaki laga qabo waa dhir caadi ah ayaa laga sameeyey kambanigani waxaa laga aqoonsaday ama loo maxay ahayday laga siiyey waxa la dhahaa cadeen ama aqoonsi laga siiyey waxa la yidhahda GMP taasoo ah shirkadaha soo saara productiga gaar ahaan productiga caafimaad ku saabsan ama waxa la yidhahda healthness soo saaro in ay soo maraan ay ku qasban yihiin wasaaraddaasi inay usoo aqbasho ee lasoo teesto gareeyo ee la fiiriyo productigooda marka kadib loo sameeyo approval ay helaan ay usoo gudbin karaan sidoo kale lab testing ay soo martay qaybtan lab testingna iyadana waa wasaaradda qaybteeda maxay ahayd caafimaadka ayay soo martay intaba waa laga aqoonsaday waa sidaa waxay caalamka oo dhan ugu faaftay kambanigani markaan kasoo tagna productigiisii iyo howlaha isaga uu noo wado aniga sidee baan uga mid noqon karaa fahmaysaa aniga sidee baan uga mid noqon karaa kambanigani qofkii ugu horreeya soomaali oo noo keena wuxuu ahaa wiil soomaali oo maraykan degan cabdirasaaq xaashe markuu helay barnaamijkan uu ka helay maadaama uu khibrad lahaa wuxuu usoo gudbiyey maasha allah qaar tiimkeena ka mid ah siraaje ama dr siraaje ayuu usoo gudbiyey isaga ayaana inagana soo gaarsiiyey kheyr allah siiyo mar walba u duceeyaa qofkiina soo gaarsiiyey maxaa yeelay faa'iidada aan ka helay iyo siyaabahan uga faa'iiday iyo waxyaalaha aan ka bartay maan baran lahayn haddii uusan noo soo gudbinin sidoo kale aniga waxay soo gaarsiiyey injineer maxamed jaamac oo mahad celinaya
waxaan leeyahay maalin khayr qabto ilaahay iigu soo kaadhiyo aad baad umahadsantahay registration markay noqoto qofka waa inuu qof sponsor u noqdaa oo link u siiyaa aniga engineer maxamed jaamac ayaa isoo gudbiyey linkigiisaan iska register garay tiimkiisaan ahay isagaana ila shaqeey maasha allah khayr allah sii waa hogaamiye lagu daysado adigana sidoo kale caawa haddii barnaamijkan aad rabtid inaad ka faa'iidaysatid qofki kusoo casumay aad ku noqon kartaa linkiga marka lagu siiyan qofku is register garaynaya maxaa laga rabaa qofka inuu kusoo galo waxaa lagaa rabaa inaad bixisid $40 oo furaha ah waayo waxaani waa dukaan waa ganacsi markaad soo gashid kambanigan website ayuu ku diyaariyay insha allah qaybta hoose aan idinku tusi doonaa websitekaasi wuxuu haystaa domain aad u weyn hosta ayuu leeyahay aad u weyn productigii iyo alaabtii oo dhan agabkiyaa lagugu diyaariyay aad isticmaali lahayd si aad ganacsigan online uga samaysid maxaa lagaa rabaa marka inaad furihii gadatid haddaa aragtaan moolasha waaweyn marka moolasha la dhiso guryaha farta laga qaaday cusub yihiin moolasha waxaa la iibiyaa furayaasha loo kala hormaraa iyagoo eber ah oo qali ah oo waxba xafiiskaasi ama dukaanka uu ku jirin furaha markaad iibsatid kadib wixii designkii aad dhigan lahayd adaa diyaarsanay haddana kiraa la bixiyaa laakiin kambanigan wuxuu ku yiri designkii anagaa kuu diyaarinay qalabka anagaa kuu diyaarinay furihii bis gado kadibna kirada 10 iska bixi ku shaqayso so bil baad bixinaysaa oo la yiraahdo membership oo bil ah ayaad iska bixinaysaa $10 ah affiliator ahaan marka as affiliator markay noqoto kambaniyaal badan ayaa affiliate ku jiro ama marketingka ku jira suuqa online-ka ah kambaniyaashaas direct sale-ka ah aniga ilaa 8 kambaniya lasoo shaqeeya oo kala duwan qaar European ah iyo qaar Mareykan laga leeyahay intaba kambaniga marka uu direct sale sameynayo wuxuu leeyahay ama waxa loogu talagalay in dadka ay gudbiyaan fariinta kambaniga leaf good maanta wuxuu haystaa lacag aad u fara badan u haystaa billions lacag u haystaa wuu agoodi karaa inuu CNN iyo BBC iyo TV-yada waaweyn ku sii daayo xayeysiintiisa oo laga iibsado laakiin ma doonayo sababta ma garanaysaa wuxuu leeyahay aniga dadkan wax u doonayaa bulshadan wax u doonayaa adiga maanta haddii aad joogto cadaada haddii aad joogtid iyo haddii jowhar aad joogtid iyo haddii laascaanood aad joogtid iyo haddii kismaayo aad joogtid meel kasto gobolada aad ka joogtid amaba aan idhaahdee wadamada kale aad joogtid waxaa kusoo gaarsiin kara waxa weeye maxay qof kale kusoo gaarsiin karo waxaa laga yaabaa inaad TV daawanin marka shirkaddan waxay go'aansatay waxay leedahay dadka iyaga ayaa isgaarsiinaya macaamiishayda iyagaa iskeenayo iyagana faa'iiday qabaan waayo qofka tuulada jooga markuu wax faa'iido shirkadda magacii horumaray gaaraysaa magaceeda meel buu gaaraya laakiin keliya ninka lacagta la hadduu loo xayeysiiyo faa'iido ma laha so kambaniyaashan marka loo eego marka online-ka ay iskula jiraan ama affiliate-ka ah qiimaha productiga ama markay noqoto qofka kusoo galaya 75% ayaa qiimo dhimis kambanigan uu sameeyay inaba caadi ma aha tusaale kale shirkadaha qaar haddii lagu yiraahdo package waxa lagu galaa $200 kambanigan $50 kusoo galaysaa package lagama iibinay productina qasab ma inaad iibisid keli dukaankii furihiisa ayaad gadanaysaa sidoo kale kirada ayaad bixinaysaa very simple sidoo kale kambaniga wuxuu ku diyaariyay ilaa 3 website oo duplicate ah ama isdabayaalo oo markaad gashid aad soo gashid aad adeegsan kartid website-yada dadka badankooda yaqaano dropshipping waa taqaanaan marka aad hadda Amazon u noqoto affiliator waxaa lagu siinayaa linkyadaasi ayaad share garaynaysaa kambanigan laakiin linkada cid ku siin maysa adaa haysatid markaad furaha gadatid waxoo dhan waxay kugu diyaarsan yihiin tooliskoo dhan qolkaada ama dukaankaada ama xafiiskaada sidoo kale tuulisyada ay ku diyaarisay ilaa system ahaan qaab aad u fudud ayuu u dhisan yahay kambanigani runtii qofkii soo galo kama dhergaayo maasha allah trainaa la bixiyaa oo joogto ah isbuucii 3 habeen ayaa tababaro ay bixiyaan aday noqon lahayd productiga iyo siday u shaqaysa iyo waxyaalaha laga sameeyey iyo sida looga faa'iidaysan karo iyo qaybta marketingka intaba anaga sidoo kale zoomamkan hadda caawaad ku jirto kale iyo kuwa kale badanaa qabanaa soo marka fursad cilmiya ku jira kasoo marka laga soo tago adiga inaad wax kale ka faa'iid cilmi ayaad ka faa'iidaysaa online-ka ah haddii aad online ku cusub tahay affiliate markay noqoto marka kambanigani muxuu kambaniyaasha kale suuqa kaga saaray ilan ganacsiga marka hore saan ku bilaabo ganacsiga waa nooc kasta wax kasta waa ganacsi haddii aad shukaansi tagto doonaysa gabadh inaad shukaansatid ganacsi weeyaan waa inaad gabadha dhiil la gashaa gabadha hadday doonaysa inay guursato waa inaad ninka dhiil la gashaa adduunku waa ganacsi sama nolosha waa ganacsi marka kambanigan muxuu kaga duwan yahay ama iskaga saari karaa kambaniyaasha kale wuxuu yidhi qof kasta oo shirkaddan soo gala ee iibsado website-kaygaasi ama back office-kaas iibsado soo gala shirkadda kasoo mid noqdo member noqdo $10 iska bixiyo
wuxuu samayn karaa ilaa $47 bil kasto isaga oo aanan waxna iibinin qofna kusoo darin iska yimaado halkaasi biskirada baxsado inaba caadi maaha dadka marka inta ay maqlaan waxay isleeyihiin tolo ma beenba ma khiyaaliba sababtoo qof aanan waxna iibinin ee halkaas soo galay siduu ku baxsanaya haddaad ila socoteen number 1 waxaan kusoo bilaabay 4 qaaba lacagta lagu sameeyaa investor jiro investor tahay lacagtaada ayaa ku shaqeynaysa you are investor ay ayaa tahay lacagtaada ku shaqeynaysa way lacagtaada ay kugu shaqeynaysaa sababtoo ah kambanigani ayaad member ka soo mid noqoto entrepreneur noqoto qof waxa tahay isaga aanan waqtigiisa iibsanayninoo saacada 8 saacadood aan shaqaynayno oo mushahar la siinayna tahay laakiin maxay investor tahay lacag baad meesha gashatay ha kugu yaraato ha kugu badnaato $50 haddaad gashatay bil kastana $10 aad bixinaysa that means investor tahay kambanigan marka wuxuu kuu sameeyey inay meesha wax kaaga soo baxa system ayuu u diyaariyey systemkaas ayaa ku siin doona qaybaha hoose ku arki doontaa markay noqoto markaa waxaan ku iri maxay $50 aad bixinaysaa website-kaadiyaa lagu siinayaa furihiyaa lagu wari jiraan kirana waad bixinaysaa haye maxaa xiga 6dan qaab ayaad lacag ku samaynaysaa intaa markaa samaysa 6dan qaaba kuu taalo samarkiisaan an income 6 ways 6dan qaabaad lacag ku samaynaysaa lagu yiri qodobka koowaad ama qaabka koowaad waxaa waaye weekly first start commission in isbuuc kasta lacag aad samaysid taasoo la yiraahdo lacagta bilowga isbuucan waa soo gashay waxaa tiri niyo meeshan anigu waxaan rabaa inaan ka shaqaysto ma rabo inaan fariisto oo 2000 aan sugo laakiin waa shaqaysanaya asxaabtaada dhaxkash saaxiibaad ku soo casuntay 3 qof baad soo casuntay 3da qof linkigaada siisay company way soo galeen maxay tahay iyagana sidoo kale dariiqad adiga martay mareen waxay bixiyeen ama sanadkii iska shubeen ama waxay iska bixiyeen furihii iyo kirada oo bish ugu horeysay company wuxuu ku leeyahay waa sidaan ugu talagalnay adigana inaad wax heshid saaxiibadana wax ay helaan dadkaasi lacagtay bixiyeen 50% adiga iskala qof kasta khamiista ku xigto hadii la nafta ku daastana waa lagu bilaabayaa start waa lagu bilaabayaa lacagtaada waad helaysaa waxaad helaysaa $75 aad helaysaa micnaheedu maxay tahay waa bilow afka marka la furo markaad soomanta afka markaad furto timir ayaa lagu bilaabaa soomaha waa sidoo kale waa lagu sii bilaabaa isbuucaasi marka dadaalkaada laakiin laga arbaa qodobka labaad waxaa la yidhahdaa matrix commission waxa weeyaan qodobkii hore aan soo sheegay ee ahaa adigoo aan qof keenin aanan shaqaynin ayaad 2,000 helaysaa 2,000 waxay ka imaanaysaa matrix u taqaanaan waa qaab mashiin ah oo automatic ah dadka geometriga barta way yaqaanaan qaabka mashiinta automatiga ayaa dadka adiga gadaashaa isa soo register garay ee leaders ka sarreey ay keeneen kambaniga hoostaada ayay usoo dhigaysaa mashiinta ayaa kugu soo hoostuuraysa kambanigan dhan wuxuu ka samaysan 2 lugood labada lugood dadka ku jira ama way ka sarreeyaan ama way ka hooseeyaan wax ka dhaxeeya malaha aniga markaan soo galay intii gadaashii kambaniga soo gasho iga hooseysaa intii iga horeysayna way iga sarreysaa fahmaysa waa silsilad isku xiran marka silsiladaasi dadka markay isregister gareeyaan ayuu kambaniga hoostaada qof soo dhigaya waxayna ku xiran tahay leaderka aad isla shaqaynaysaan ama tiimamka saa u wada shaqaynaysaan iyo waqti inaad sugtid maaha inaad degdegtid so dadka lacagtaasi waxaa kaaga imaanaysa lacagta ay bixiyaan kirada ah ayaa waxaa lagaa siin doonaa lacag aad u yar oo arki doono qodobka saddexaad waxaa waaye margin bonus iyo waxa isla socda tan ugu horeysa first start commissionka ah waayo tani waa qofkii shaqeeya tani waa qofkii shaqeeya dadkii marka aad keento saddexdaadii qof oo ugu horeyso iyaga ay shaqeeyeen oo leaders ay ku noqdeen sidoo kale iyaga lacagta ay shaqeeyaan matrix ay ka shaqeeyaan iyo tiimamkooda ka timaada adiga waxaa lagaa siinayaa sidoo kale haddii aad toos u keentay 50% sidoo kale haddii ay generationkaada labaad yihiin 25 qodobka afraad ama qaabka afraad waxaa la yidhahdaa retail commission inaad product iibin kartid productig dadaa ku fiican dadaa naturationka bartay qaybta naturationka dadaa caafimaadkii bartay dadaa farmasyaashii bartay daawooyinka iyo waxyaalaha ku lug leh bartay oo ay u fududahay inay productigan qaadaan oo iibiyaan ama farmasho leh ama dukaan leh ama dalbado alaabta iibiyo weliba gaar ahaan gabdhaha aaday ugu fiican alaabta inay iibiyaan so haddii aad noocaas tahay alaabtan waa dalbanaysaa shay kasta oo adiga aad dalbato 50% faa'iido ayaad ka helaysaa oo kambani ku siinaya qodobka shanaad ama qaabka shanaad waxa weeyaan influence bonus inaad tahay qof bulsho ay ku xiran tahay tusaalo kale waxaad leedahay tiktoker ayaa tahay ama facebook aad leedahay live aad soo gashaa dad badanaa kugu xiran linkiga productiga ayaa waxaad dhigaysaa halkaa hoose productigana xayisiin aad u samaynaysaa
qof kasta ee linkiga raacay productiga iibsado kambaniga ayaa u diray alaabta adigana boqolkiiba 50 faa'iidad ku leedahay waxaa laga yaabaa maanta in badanoo bulshadeena ka mid ah inay ku mashquulsan yihiin tiktok inay soo galaan maantoo dhan ay siyaasad ka hadlaan maantoo dhan ay ree hebel ka hadlaan laakiin ka waran beddelkeeda haddii ay ku shaqaystaan productigan ay dhigaan malaayiin lacag ay ka samayn karaan noloshooda waxay uga bedeli karaan laakiin yaa okay insha allah ilaahay ka dhig kuwii ka faa'iidaysto qodobka lixaad oo qofku lacag ku samayn kara waxaa weeye diamond pools waa in qofka uu gaaro darajada ugu sarreysa darajada ku xigta kambaniga laga gaaro isla markaana aad lacag badan shaqayn kartid oo tiimo badan aad madax u tahay injineer maxamed jaamac ayaa gaaray maasha allah hambalyo insha allah in kaloo badan oo liidarska soomaaliya had soo socdana way ku socdaan afartaa qodob ama lixdaa qodob aan sheegay mid kasta waa dul tegi doonaa anoo soo koobayo midka ugu horreeya waxaan dhahnay kii bilowga ahaa ee afka lagu furaya ee ahaa weekly first state commission sidee lagu helaa halkan sida ku qoran qofka markuu kambaniga soo galo ee ugu horeysa waxaa tahay unrank $50 aad bixisay unrankaa tahay maxay furiyaad gadatay back officekaada heshay kirana waa bixisay laakiin dad ma haysid kadib asxaabtaadaad ku casuntay halkaa waxaa imaanayso inaad laba qof keento laba qof haddaad keento bronzer aad noqonaysaa darajo ayaad u gudbaysaa one step ayaad hore u socotay marka halkaa markaad unrankeed qof kastood keento boqolkiiba 50 baad ka helaysay hal qof ama laba qof ama inta linkigaada laakiin sidoo kale bronzer markaad aaday waxaad ka heli doontaa adiga dadkaad keentay iyo dadkay sii keenaanba generationka labaad silver markaad aadid ilaa waxaad ka heli doontaa generationka afraad gold markaad aadid waxaad ka heli doontaa ilaa generationka shanaad generation markii lagu leeyahay waxaa waaye dadkaad keento dadkay sii keenan kuway sii keenan awoowe abko ayay inta ka hesheys platinum markaad tahay ilaa generationka waxaad ka helaysaa sideedaad gold diamond markaad tahay waxaad ka helaysaa ilaa generationka tobnaad lacagtaasi maxay noqonaysaa boqolkiiba 50 generationkaada koowaad boqolkiiba 10 generationkaada labaad boqolkiiba 5 generationkaada saddexaad sidaas ayay u dhacaysaa haddii marka aad rabtid inaad shaqaysatid meeshan barnaamijkan cid kaa hortaagan ma lah malaayiin lacagaad samayn kartaa su-aal isoo weydiya waxay ahayd wiil baa wuxuu yidhi haddii aan 100 qof keensado 100 qof aan haystaa haddaan keensado maxaan helayaa qaybtan weekliga ah 100 qof haddaa keensatid 2500 aad ka helaysaa oo toos adiga iska talaashid maaha lacag maad samaynin kaba soo qaadba 100 qof waxaad ku keensatay 2 week aan dhaho labadaa week meeqaa shaqaysid 2500 shaqaysid waa lacag waa shaqo abuur xagee laga helaa ma jirto dadkay sii keeneen waad ka sii faa'iidaysaa taasi waa waxay ahayd qodobka koowaad qodobka labaad matrix uu ahaa matrix waxaad ka helaysaa dadkaani hoostaada matrix ay soo dhigaysa mashiinta waa haddii aad unranka tahay taasi unranka lacag laguguma siinayn ilaa dad aad keenta laakiin tan adigoo unranka ah ilaa 2000 ayaad samayn kartaa bishii waayo sababtoo ah tirada dadkan waxay imaanaysaa generationka ah waxa la yidhaahda waxay imaanaysaa 2 times 15 matrix waxa lay ku imaanaysaa taasoo ah lugahaadan dadka soo gala ayaa lagugu dhufanaa tusaalo kale lugtaada koowaad marka aad generation noqonaysa 2 qof aa soo gelayso lugtaada labaad 4 qof aa soo gelaysa 8 qof saasay u soconaysaa waa lagu dhufanaa tiradaasi ilaa lugtaada 12aada lagaa siinaya dadkaasi marka lagaa siiye $10 ee bixiyaan ayaa waxaa lagaa siinayaa $0.25 ayaa lagaa siinayaa lacag aad u yar waay laakiin soomaalida waxay tidhahdaa quraansho aruurtay bulac waa jiidaa taasoo micnaheeda ah lacagta markay badato lacagay noqotaa laakiin markay yar tahay waa yase waxaa leedahay maxay tahay waxay caaw ka hadlayso sentiyaan aniga usoo fariisanaa miya laakiin markay badato maxaa yeele meeshan dadaa ku jiro kambanigani saan idin sheeg 6 bilood ayuu hadda marayaa nus milyuun dad ah ayaa soo galay iska register gareey oo member ah daily intaasoo kun oo qofaa soo gasha marka adiga yaan lagaa tegin ka faa'iidayso waayo ma ogaan kartid sanadka hadda intaad ku jirta intaad gaaraysaa ma ogid bronzer qofka markuu gaaro $4,000 bil kasta samaynaya silver markaa gaartid $4,000 samaynaysaa gold markaa gaartid $8,190 samaynaysaa platinum markaad gaartid $8,191 ayaa samaynaysaa diamond markaa gaartid $16,383 ayaad bisha samaynaysaa lacagahaani waxay ka imaanayaan tiimka ka imaanaya fahmaysa tiimka bil kasta waxay bixinayaan $10 adna waxaad bixinaya $10 investor aad tahay investoryaal waay fahmaysa kambaniga wax badan kuma baxayaan dadku ku celinaya kambanigan waa kambaniga keli ah ee direct sale ah
isla markaana yiri win business aan haystaa aniga macaamiishaydana way faa'iida anna waan faa'iidaa leesh keligay maxaa wax u cunaa may aan wada cuntayno marka haddii fursaddan marka caawa ay kusoo gaarto adigana dee dhinacaada ka galdee waa fursad aan inaba caadi ahayn qodobkii saddexaad wuxuu ahay margin bonus lacagta waxay ka timaadaa tiimamkaada adiga aad qortay dadkii marka ay shaqeeyeen lacagta bisha ay sameeyeen ayaa waxaa lagaa siinaa boqolkiiba konton iyaga tooda waa la siinaa adna taada waa lagu siinaa tusaalo kale aniga lugtayda midig waxaa yaala doctor axmed lugtayda kale waxaa taala firdowsa lugtayda kale waxaa taala simsim saddex qof aa toos iiga talaala saddexdaa qof wax kasta ee bishii sameeyeen waxa ii soo dhacaysa maxay boqolkiiba intay sameeyeen konton tusaalo kale haddii axmed uu sameeyo $1 uu sameeyo aniga kambaniga wuxuu siinayaa $500 asagana kunkiisa la siinaa why because axmed aniga kambaniga u keenay fariinta anaga gaarsii linkeygu iska soo register garay axmed qofkuu sii keenay ani maxaan ka helayaa waxaad ka helaysaa boqolkiiba $25 halkan lacagta ugu badana marka halkan ay ka timaadaa qofka markuu marketer yahay business yaqaano muxuu yahay fursadaha ka faa'iideysto fursad ugu badan halkaana laga helaa laakiin inaad fahantid waxay u baahan tahay cool down caawa qoro su'aalahaada qoro qodobadan qoro kadibna dib ugu noqo horta waxaad tidhahdaa wax kasta waxaa ka horey inaan wixii barto ee aan fahmo maskaxda aan ku shubay aan soo galo aan arka xafiiskayga markaan furto waa retail tan waa productiga inaad iibisid tan dadka productiga iibiya ku fiican tahay productiga marka adiga aad member tahay tusaalo kale qiimaheeda waxaad ku helaysaa aan idhaa haddaba ultraskan waxaad ku helaysaa 8.95 waa iska $9 $9 markaad adiga qiimaheeda ku heshid qofka caadiga oo retailska ah ee aan memberka ahayn wuxuu ku qaadanaa $17 adiga waa iska $18 waa kala bar mar kasta ood adiga alaabtan iibinaysid boqolkiiba konton ayaad faa'iido aad kambaniga uu kuu sameynaa laakiin adiga intaa saaran lahayd aday kuu taalaa productiga haddii intaad soo qaadid dukaankaada keentid oo aad tidhaahdo aniga waxaan iibinayaa $20 $25 orda waa anaga hadda meesheena $20 laguma helaa ka badan $30 la iibiyaa tan oo kale laakiin kambanigan productigiisa aad ayuu ugu raqiisan yahay markay noqoto qiimihiisaba okay aan usoo laabtay influence tani soomaalida iska leh soomaalida waxaa la yidhahdaa waa oral society waa dad hadlo haddii caawa aad hadda gashid tiktok haddaad gashid intee qof ayaa live ku jira oo hadlaya waxay ka hadlaya aan ogeyn waqtigooda uu ka socdo waqti adduunka wax ku soo mara waqtigaa ugu qaalisan إلى سبحانه وتعالى maalintii qiyaamo kugula xisaabtami doona waqti ayaan ku siiyey xagee baad ku bixisay maxaad ku qabatay maxaad hadda ila hor fadhidaa ood la timid ka waran haddii marka aad ka faa'iidaysatid oo bulshadana uga faa'iidaysid influence fursaday ku siis kambani waxay ku tiri haddiiba aad tahay qof bulshada dhex geli karo oo hadli karo halkan lacagaa taalo markays waa inaad ka shaqaysan kartid boqolkiiba 60 in ka badan ayaa faa'iido lagaa siinaya hadba additional commissionkaada iyo total commissionkaada ama personaliga saad u shaqaysa adeeg ku taala adiga iyo tiimkaadaba linkada haddaad ku shaqaysaan oo isla shaqaysaan lacagan inaba caadi inaad ka samaynaysaa dadka marka fursadda haysto waa dadka influenceaha ee hadlo ee baraha bulshada kasoo muuqda shaqadooda halkaanay taalaa bilis u sheega shaqadiina halkaanay taalaa shirkadaana shaqa idin hayso halkaasi ha ku daalino way maantana waad hadlaysaa cid wax ku siinaysa male laakiin halkaan markaad hadashid lacag baad helaysaa maxay fursad baad helaysaa waxaa tahay dee businessman aad noqonaysaa iyo business woman okay daimana usoo laabta marka daiman waa meesha ugu lacagta badan qof kastana u socdo shirkadda marka aad darajadan gaartid abaalmarin goonahay ku haysaa number 1 sel kasta oo dhaco waxay kaa siinaysaa maxay boqolkiiba labo bishii bil kastaad helaysaa waxaa kuu dheer qaybtii kale oo aan soo sheegay 16,000 iyo $380 bish inaad qaadato 16,000 bish haddaa qaadatid kambaniga wuxuu shaqeeyaana lagu siiyo boqolkiiba laba lagu siiyo maxaa kaa maqan wax kaa maqan ma jiro dadaalkaada lagaa rabaa inaad usoo jeesatid oo fursaddan aad aragtid ayaa lagaa rabaa laakiin ogow fursaddaani inaad ka faa'iidaysatid waxay u baahan tahay in aad marka hore horta adiga usoo diyaar garowdid caqabad kasta kugu imaata inaad wajihi kartid adduunka ma jirto meel wax iska yaala ma jirto hamisa soomaalida waxay tidhahdaa hasha geela ah geedka cagaarkay aragtaa laakiin godka ka sokeeya ma aragto taasoo micnaheeda ah haddii lacagtan caawa lagu sheego lacagtana kuu muuqana laakiin wax badana ka sokee waqti waa inaad gelisaa waa inaad tababar qaadataa barnaamijkan soo gashaa ay kaa go'an tahay dadaalkaadii waqtigaada qayb aad gelisaa ma sahlano laakiin waad gaaraysaa dadaalaa wuu gaaraa qofkii go'aansada wuu gaari karaa injineer maxamed jaabac 3 bilood buu ku gaaray darajadan
soomaha why not adna waad gaari kartaa waa nin soomaaliyeed oo hooyadii 9 bilood ay ku dhashay adigana sidoo kale why not waa samayn kartaa qof kastoo dadaal samay wuu gaari karaa laakiin waxaa laga yaabaa cabsi inay kaa reebto oo ah hashi geedka cagaaran kaga baqda godka inaad noqotid intaasaa ku daran markaan usoo laabta marka lacagta dhaqaalaha laga sameeyo sidan ayuu usoo dhacayaa hadda tusaale kale matrixan kasoo hadlay accountkan matrix waxaa kusoo dhacay $911 laakiin waqti horu ahaa bishii march wayaan hadda ka badana ku socoto waa matrix margin bonus maxaa usoo dhacay 14,270 wow masha Allah margin bonus waa lacagta ugu badan oo qofka usoo dhacday waana bille matrixna waa bille laakiin weekliga markay noqoto ayaa idin tusayaa iyadana weekly sidan ay usoo dhacaysa halka waxa ku soo qormaysa weekly accountkan weekly maxaa soo galay masha Allah dhaho haddii aad dadaasho shaqaysidaas ay lacagta kugu soo dhacaysaa wiigaada isbuucaada waxaa rabtaa meesha rabta isaga safar diyaaradda rabta iska raac laakiin dadaal aa ka horeeya shaqo markaan aan ku bilaabay shirkaddan waxay ugu talagashay dhalinyarada weliba dadka technologyada yaqaano online-ka geli kara oo smartphone-ka isticmaali kara waxaa loogu talagalay inay farxad ku noolaadaan caafimaadna ku noolaadaan dhaqaalana helaan wealth noqdaan laakiin qofkii ka dhagala oo maxaa lagu samaynayaa ma garanayno okay kambanigaana marka intaas caawa aan soo sharaxno dhan markuu kuu diyaariyey waxyaalaha ugu muhiimsan ee lagu soo koobi kara waxa weeyaan inaad ku hormarisid caafimaadkaada waad ogaan doontaa markaad soo gashaad ogaan doonto sidee baad caafimaadkaada ugu hormarinaysaa waa productiga caawa dhan aan ka sheekeynaa lagu diyaariyey sidoo kale inuu kusoo galo dakhli aan xadadnayn oon ku xisaabnayn oo dadaalkaada ku xiran tahay soomaali waxay tidhahdaa qof walba tabartiisa ayuu qodaxda ugu tagtaa haddii geed qodax leh oo dhulka yaala aad ku istaagtid qofba qofku ka awood badan yahay ayay toos u gashaa haddii dhaqaalahaada marka unlimited lagu dhahay inta harta samayn kartaa laakiin diyaar ma tahay sidoo kale farxadaad heli kartaa dabcan haa hadday waxaa soo sheegna 4 sacaado waaweyn ay qayb ka tahay waa caafimaadkii waa farxaddii waa qaninimadii okay loofkiina wuu soo gelayaa intaba waad samaysan kartaa haddaad dhaqaale haysid wax kaa hortaagan malaha weliba adoo halkaad joogtid xaafadaada joogtid oo aanan cararin oo aanan qaxin oo aanan tahriibin ayaad samayn kartaa fursaddaas maxaa ku sii thanks to technology ilaah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale ilaahay ka soo kow technologyda ayaa noo sahashay iyo qarniga aan nool nahay personal development inaad naftaada hormarisid adduunka qofka markuu naftiisa hormariyo ee isla xisaabtamo ee waqtigiisa ku xisaabtamo ee og yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la xisaabtamayo aad ilaahay ku xirnaat wax badana iska kaa bedela mar haddii marka barnaamijkan aad soo dhex gashid wax badana baranaysaa maskaxdaada way kobcaysaa caqligaada wuu kobcaya cilmigaada wuu kobcaya dhaqaalahaada wuu kobcaya laakiin waxaa laga rabaa inaad u diyaar garowda passive income dhaqaale aysan cidna ku xisaabinaynin oon lagu dhehaynin 9 saacadood shaqaysi 8 saacadood shaqaysi kambanigii uu kaa ceerinaynin ninkii iska lahaa fire aan lagugu samaynayn ayaad haysataa laakiin sidaa uga faa'iidaysan lahayd is up to you adigaa lagaa rabaa maanta inaad go'aan qaadatid okay let's go diyaarad duulaysa inaan raacno weeyaan aad baad u mahadsantihiin caawo presentationkii intaasan kusoo koobiya ma soo koobi karo mana aha caawo oo keli inaan maskaxdaada ku shubi kara wax allaale wix halkaa ku jiro laakiin micnaheedu waxa weeyaan ujeedka ama conceptiga inaad fahantay ayaa muhiim ah su-aalahan insha allah qaybta dambe waa qaadi doonaa laakiin waxaan idin leeyahay fursadda mar kasta albaabkaada ma soo garaacdo haddii ay soo garaacdana kuma tiraahda waxaan ahay tii aad ka faa'iidaysan lahayd laakiin adigaa lagaa rabaa fursad inaad fahantid oo aad tidhaahdid talow fursaddan amay tahay tii aan ka faa'iidaysan lahaa oo nolosheedii wax ka bedeli lahayd kadib bug iyo qalin qaado fikir wax yar qaado neef qaado hawo qaado alxamdulilah ilaah u mahad celi qofkii kugu soo casumin u mahad celi kadib go'aan qaado aad baad u mahadsantihiin intaasan kusoo koobiyaa wixii su-aalahan insha allah waadna